أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow muuqaalkeena maanta waxaan qaadan doonaa maadada xisaabta chapterkiisa 1 ayaan ka bilaabi doonaa trigonometric. waxaa muhiim ah chapterkan in aad taqaanid ama aad xifdisan tahay special angles waxa la yiraahdo ama xagalaha special angleska waa 0 ilaa 90 360 marka hadaa haysanin anaa idin soo diraya marka ama si gooni ila soo hadlaa idin soo diraa insha Allah. waxaan ka bilaabi doonaa marka trigonometric chapterkiisa koowaad ilaa iyo wuxuu ka kooban yahay maadadan xisaabta form 4 maxay la mid tahay cos 90 degree minus theta maxay la mid tahay waxay la mid tahay sin theta sin 90 degree minus theta maxay la mid tahay cos theta la mid tahay cos theta ayay la mid tahay iyadana tan 90 degree minus theta yaa la mid tahay tan 90 degree minus theta waxay la mid tahay cot theta la mid tahay cot theta marka waxaan dhehnaa cot 90 degree minus theta waxay la mid tahay tan theta la mid tahay tan theta ayay la mid tahay sec 90 degree minus theta waxay la mid tahay dhehnaa cosec theta la mid tahay cosec theta waxay 90 minus theta waxay la mid tahay sec theta. sidoo kale waxaa xalin kartaa booska 90 waxaa ku bedeli kartaa pi over 2 waa isku mid waa marka pi over 2 ayaa dhihi kartaa iyadana the same identities can be obtained for real number marka iyadoo lagu bedelayo 90 degree ayaa waxaa ku bedeleysaa pi over 2 waa isku mid pi waa 180 meeno lagu qeyb 180 lagu qeyb waa 90 marka waa isku mid waa marka. haddaan fiirino example-ka ku xiga 1.2 example-ka labaad find soo hel one value hal qiima laga rabaa qiimahaas oo noqon karo theta ama wuxuu noqon karaa x that satisfies kaasoo lagu qanci karo marka each of the following kuwaan soo socda mid walbo ka mid ah in lagu qanci karo. aan fiirino marka maxaa haysanaa waxaa haysanaa cot theta waxay la mid tahay tan 25 degree ayay la mid tahay. sidoo kale sin theta waxay la mid tahay cos minus 30 degree ayay la mid tahay. numberka ku xiga c maxaa haysanaa cosec 3 pi over 4 yaa la mid tahay iyadana waxay la mid tahay sec theta ama sec x haddaan ku dhahnay theta ama x aa lagu dhamaano marka sec x aa haysanaa. waxaan fiirinaynaa marka solutionka ayaan fiirinaynaa solutionka numberka koowaad cot theta maxay la mid tahay tan theta marka waxaan dhehnaa tan 90 degree minus theta waxay la mid tahay tan theta tan 90 degree minus theta yaa la mid ah waa tan theta la mid ah. hadda confuctioniska soo qaadanayna waa marka inaad taqaanid waa muhiim marka waxaa isla bixin doonaa tan halkan waxaa kaaga muuqata tan halkan maxaa kaaga muuqata tan sidaa darteed marka tan iyo tan waxaa ku sameyn doonaa remove marka halkaa ka diri doonaa 90 soo haray minus theta waxay la mid tahay halkan waxaa kusoo haray 25 halkanna waxaa kusoo haray 25 marka aan fiirino qaabka ay ku imaaday marka saa u xalinayn marka halkan barxaddan aan ku shaqeyn doonaa si loo fahmo buga soo qolaasin ayuu yar oo ku sameynaa halkaas. waxaan soo qaadanaynaa 90 degree aan soo qaadano 90 degree minus theta soo qaadanaynaa oo xagashiya theta waxay la mid tahay 25 ayaa la mid tahay 25. waxaan soo qaadanaynaa marka minus theta soo qaado equal 25 minus 90 soo wareeji waa minus 90 waa minus theta soo qaatay waxay la mid tahay kala jar 25 iyo 9 waxaa soo baxaya minus 65 sidaa darteed minus iska baabi'i minus ku dhufo meel walba minus hadaa ku dhufto plus oo noqday
kana minus ku dhufo plus oo ku noqdo 65 theta marka waxay la mid tahay 65 degree ay la mid tahay 65 degree ay la mid tahay waa qaabkaas oo xalinay waxaan fiirin doonaa marka b ayaan fiirin doonaa b intaan iska masaxo b ayaan fiirin doonaa marka b waxaa haysanaa sin theta waxay la mid tahay cos minus 30 ama cos bracket minus 30 degree bracket soo xir marka waxaan leeyahay cos 90 degree minus theta ay ku bedelaan sin waxay la mid tahay cos minus 30 degree marka waxaan samayn doonaa sida hadda taana usoo remove gareynay cos aska remove gareynaynaa marka cos iyo cos halkaas oo ka bixinay maxaa soo haray 90 degree minus theta waxay la mid tahay minus 30 sidoo hadda isla wadadii hadda aan marno marka waxaan soo qaadanaynaa 90 degree aan soo qaadano 90 degree minus theta waxay la mid tahay minus 30 soo qaadana marka minus theta soo qaado minus theta waxay la mid tahay minus 30 halkaas soo wareeji minus 90 waxaan dhihnaa marka minus theta waxay la mid tahay minus 30 iyo minus 90 isku dar minus 120 waxay noqonaysaa minus 120 halkaa minus ku dhufo iska baabi'i minuska theta waxay la mid tahay 120 asagana minus ku dhufo labada dhinac minus ku dhufanay soo baabaa minuska 120 degree aan soo baxday marka arjina in la fahmay waxaa gudbaynaa numberka ku xiga ee c ayaa usii gudbaynaa c marka waxaa haysanaa haddaan fiirino cosec 3 by over 4 waxay la mid tahay sec x marka waxaan dhahaynaa cosec soo qaado 3 by over 4 soo qaado sectan waa iska bedelaynaa waxaan ku bedelaynaa cosec 90 degree minus x aan ku bedelaynaa marka waxaan sameynaynaa asagana waxaan bixinaynaa cos iyo cos cosec isla bixi marka waxaa kusoo haraa halka cos iyo cos haddaan isla bixino waxaa soo hari doono 3 by over 4 waxaa la mid tahay 90 waa bedelay marka 90 waa bedelaynaa haddii waxaan dhahnay 90 yaa u dhigma aan dhahnay by over 2 haa u dhigma haddaa xasuusatid marka by over 2 90 waa ku bedelaynaa marka hore waxaan sameynaynaa marka cosec iyo cosec isla bixino cosec iyo cosec isla bixinaynaa marka waxaa noo soo haray 3 by over 4 equal by over 2 minus x 90 aan ku bedelanay by over 2 aan fiirina marka asagana halkaan aan u shaqeyn doonaa si loo fahmo marka ayaa marka jawaabtaas ku imaaday in jawaabta waxaan rabnaa inaan soo baxdo minus by over 4 inaan soo baxda rabnaa marka halkaan aan ku xalin doonaa marka hore waxaan soo qaadan doonaa 3 by oo loo qeybiyey 4 3 by oo loo qeybiyey 4 soo qaadanay waxay la mid tahay by over 2 by over 2 laga jiro x marka qiimaha x aan raadinaynaa marka hore waxaan sameynaynaa marka waxaan soo qaadanaynaa 3 by over 4 soo qaadanaynaa 3 by over 4 waxay 2 by waxaan dhimanaa equal meno gudaha soo geli marka minus by over 2 equalka kasoo wareejin equalka haddaa ka wareejina calaamadda inay isu bedelayso waan aqaanaa waxay la mid tahay minus x marka halkaan by ka maqan maano 3 over 4 marka waxay dhahaynaa waxay la mid tahay hooseyahooda meeqa waa LCM ko 4 ay wadaagaan 4 u qeybi waa 1 4 haddaan u qeybino waxay noo noqonaysaa marka halkaa by aan ku darno 4 iyo 4 haddaan u qeybino waa 4 marka halaa kasoo baxday maana 4 u qeybi waa 1 3 by ku dhufo 3 by minus
afar labo qayb waa labo by ku dhufo 2 by waxay la mid tahay ay 3 by iyo 2 by kala jar waxaa kasoo baxaya marka 3 by iyo 2 by kala jar waxaa kasoo haraya by kasoo harayso by loo qeybiyo hooseeyaan meeqa waa 4 hooseeyaan waa 4 waxay la mid tahay minus x marka meel walba waxaa ku dhufanaynaa minus ku dhufo si x keliisa usoo baxo ilaa hadda minus x haysanaa marka waxay la mid tahay x minus haddaan ku dhufan waa baabi'i doonaa minuska kana minus oo qaadan doonaa by over 4 waxaana soo baxday waa jawaabta u dambeysa marka qaabkaas waxaa lina markaa hadaa fahmi weyse ama waxaa fahmi weysay si gaar ah nala soo wadaag marka intaa waa example-ka waxaa ugu gudbeynaa 1.2 ayaana ugu gudbeynaa insha allah example-ka hala baraati gareeyo example-ka ku xiga kusoo gabagabeyneynaa 1.3 example-ka ku xiga 1.3 right waxaa qortaa cos 180 degree minus theta as trigonometric function u qoraynaa oo theta ah solution marka cos 180 degree minus theta waxay la mid tahay cos a minus b oo noqday ku bedelo cos a maxay isna 180 b maxay isna theta minus haddoo noqdo plus ay admano sin a maxaa ku bedelinaa 180 oo ku dhacsan sin theta cos 180 meeqa waaye haddii ay soo hadal minus 1 waaye oo ku dhacsan cos theta plus sin 180 meeqa waaye waa 0 waaye 0 oo ku dhacsan sin theta hay minus 1 ku dhufo cos theta ku dhufo minus 1 cos theta ku dhufo waa minus cos theta waaye hay intaana 0 ku dhufo waa 0 waaye waxbaa soo qaadan halkeeda ugu tagnay waa 0 marka waxaana soo baxay minus cos theta ayaana soo baxday minus cos theta halkaa waan kusoo gabagabayneynaa marka cashirkeena maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh